ereyga ah personal branding waxaan u malaynaya inaad in badan aad maqashay iyo ahamiyadda ay leedahay inuu qof walba oo business ku jira amba business doonaya inuu sameeyo ay tahay inuu sameeyo mawduuc aad iyo aad u qiimo badan weeyaan ahamiyadda ay leedahayna waan ka hadli doonaa personal brand hadday micnayno micnaheedu waxa weeye sumad gaar ah taas oo qofku asagu uu ahaanayo sumadda amba waxa lagu garto waxyaabaha uu iibinayo amba mustaqbalka hadduu doonayo wax uu iibiyo amba mithaal ahaan haddaynu ka soo qaadano Steve Jobs kulligeen waa wada garananaa inuu yahay aasaasaha shirkadda weyn ee Apple mar walba oo Steve Jobs lasoo magac qaado amba laga hadlo markiiba waxay nagu soo dhacaysaa inuu ahaa aasaasihii shirkadda Apple marka ahamiyadda ay leedahay personal branding halkaas ka tahay inaad noqotid adigu qof la yaqaano oo bari mustaqbalka markuu business u sameeyo amba waxyaabaha uu doonayo dadka inuu ka iibiyo wallahi hebel ayaa aasaasay oo shayga mucayanka ah ee suuqa yaala maanta leh taariikhda dib haddaynu ugu noqono berigii hore dadka siday ganacsiga u samaysan jireen amba ganacsigooda loo iibin jiray personal branding kuma jirin haddii hore aynu yara soconno waxa ku xigay towradii sanaaciga ahayd markay dadku ay bilaabeen inay mashiinada iyo waxyaabaha wax soo saarka sameeya ay sameeyeen run ahaantiina casriga sanaacadda personal branding sidaa uma badnayn inkastoo dhowr caailadood ama dhowr family maarta lagu qiyaasi karo inay ayagu ka dambeeyeen waxyaaba maanta aynu isticmaalno sida gawaadhida Ferrariga ninka asaasay oo kale iyo gawaadhida Fordka ah marka personal branding runtii wax aad iyo aad u yar ayuu ahaa dabcan maanta casrigan aynu ku jirno social media wuxuu sahlay inaynu dad fara badan aynu baranno dadka fara badan inay ganacsiga maaragtay iyaga u khaas ay sameeyaan buugaaga ay qoraan waxyaabo fara badan ay sameeyaan marka hadafka aan u leeyahay mawduuca waxaan uga hadlay maanta waxa weeye in qof walba insha Allah tacaala ku dadaalo inuu magac gooniya ama sumad u gaar ah asagu inuu samayso taana markaad samaysid biidnillah tacaala طبعا dadaalkaaga iyo waafajinta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku waafajinayo ayuunbaa kaa xiga ugu dambayntiina waxaa odhan karaa qof allaaliyo qof xirfad leh amba experiency majaal mucayana u leh waa samayn karaa personal brand runtii adaana ku anfacaysaa oo sidan sheegay mustaqbalkaada doonaysa business inaad ka samaysid aad iyo aad buu ku anfacaya haddaba qaybtan ugu dambaysa haddaad soo gaadhay wax kaa codsanaya like iyo follow inaad samaysid oo comment sectionkana aad ugu soo qortid haddii personal brand aad samaysan lahayd majaalkee ayaad ku samayn lahayd qaabkaad u samayn lahayd haddaad doonaysaa si shakhsiyan aad ila soo xidhiidhaan oo personal branding aad iga weydiisaan oo aad doonaysaan insha Allah tacaala inaan ugu caawiyo si aad business aad uga samayn lahaydeen waana free waxa lacag nagama rabo hadafkaygu waxa weeye ina connection iyo network aan insha Allah tacaala aan isla samayno marka khayr badan weyn rajeeye assalaamu calaykum